dowladda Mareykanka ayaa jinsiyadda kala noqotay Sheekh Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Kaariye oo hore imaam uga ahaa masaajidka ugu weyn magaalada Portland ee dalka Mareykanka. Wargeyska maalinlaha ee The Oregonian oo ka soo baxa Portland ayaa isniintii 6 May daabacay in sheekhu toddobaadkan soo gaadhay Somaliland. warku waxa uu intaasi ku daray in Sheekh Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Kaariye uu marka hore ku jiray liiska dadka ay dowladda Mareykanku ka mamnuucday in ay diyaarad raacaan, laakiin markii dambe ay kala shaqaysay sidii uu dib ugu soo noqon lahaa Somaliland oo uu dhashay kadib markii ay sheekha iyo dowladda Mareykanku sidaas isla garteen. Wargeysku waxa uu sheegay in sheekhu uu dowladda Mareykanka ka ogolaaday in aanu dacwad kala hor imaanin noqoshada jinsiyadda. waxa kale oo uu qartay in markii uu bishii 7 ee sanadkii 1997 codsanaya jinsiyadda Mareykanka uu been u sheegay mas'uuliyiinta laanta socdaalka ee hawsha gacanta ku haysay. Heshiiska dowladda Mareykanka iyo Sheekh Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Kaariye ayaa inuu burburo ku sigtay isniintii 6 May. qareenka Sheekh Kaariye ayaa dowladda Mareykanka ka dalbaday in la laalo heshiiskaas kadib markii uu ogaaday in sheekha lagu xiray magaalada Dubai ee dalka isku tagay Imaaraadka Carabta oo uu soo maray. duulimaad 24 saac qaadanaya oo ku imanayay magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa uu Sheekh Kaariye oo 57 sano jir ah Arbacadii toddobaadka hore diyaarad ka soo raacay magaalada Seattle ee dalka Mareykanka, waxaanu qorshuhu ahaa inuu 4 maalmood kadib u sii gudbo Somaliland. laakiin isla markii uu gaadhay garoonka diyaaradaha ee Dubai ayaa uu sheekhu gegida diyaaradaha fariin ugu diray qareenkiisa joogay gobolka Oregon ee Mareykanka, isagoo u sheegay xariga ayaanu fariin ugu qoray waxba qaldan. Sheekh Kaariye waxa lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Dubai oo baadhayaal dowladda Imaaraadka Carabta ka socda muddo 7 saacadood ah su'aalo ku weydiinayeen, waxaanay wax ka weydiiyeen magaalada uu ka yimi ee Portland, masaajidka uu tujinayay iyo wadaadada iyo dadka magaca leh ee masaajidkaasi ku xidhnaa. qareenada Sheekh Kaariye oo kala ahaa Philip Smith iyo Nicole Nelson waxa ay sheegeen in sheekha intii uu Dubai lagu hayay loo diiday inuu qareenadiisa Mareykanka la xidhiidho, sidoo kalena waxa laga qaaday xamaamtii uu sitay oo dhan. qareenada sheekha ayaa ku doodaya in wareysiga oo Imaaraadku la yeeshay ay tahay dowladda Mareykanka oo heshiiska burisay, maadaama oo sida ay ku doodayaan aanu Imaaraadku wareysan karin isagoo aan fasax ka qaadan Mareykanka. bishii Oktoobar ee sanadkan ayaa ahayd markii dowladda federaalka Mareykanku ay maxkamadda ku wargelisay in Sheekh Kaariye lagu daray liiska dadka loo diiday inay diyaarad ku safraan, taasoo lala xidhiidhinayo taariikhdiisii hore oo ka mid ahaa mujaahidiintii dalka Afghanistan kula dagaalantay midowga Sofiyeeti. sidoo kalena sheeko telefoonka oo basaasiin dowladda u shaqeynayay ay qarsoodi uga duubeen sheekha iyo 2 ka mid ah 7 nin oo caan ku ahaa tuhno argagixiso ayaa lagu ogaaday in sheekhu si aad u taageerayo dagaalka jihaadka. waxa kale oo Mareykanku sheekha ku eedeynaya in Kaariye uu iskaashi la lahaa Osama bin Laden iyo rag kale oo ururada Mareykanku argagixiso u aqoonsan yahay. ugu dambeyntii Sheekh Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Kaariye waa ay sii deysay dowladda Imaaraadka Carabtu, waxaanu Hargeysa yimi Jimcihii 3 May. qareenada sheekha ayaa maxkamadda Portland u gudbiyay qoraal ay ku sheegayaan in dowladdu ay ka jawaabto sababta sheekha loogu xiray Dubai, haddii kale ay ka bixi doonaan heshiiskii dibna u furan doonaan dacwadu sheekhu dib ugu dalbanayo jinsiyadiisa. laakiin mas'uuliyiin dowladda u hadlay ayaa iyagu ku doodaya in tallaabada Imaaraadku sheekha ku xiray ahayd mid dowladdaas u gaar ah oo aanay kala tashan Mareykanka.